waxaa maanta iyo habeennimadii xalayba si weyn looga xusay dhammaanba dalka Soomaaliland sanad guurada 56aad ee ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland ka xorowday boqortooyada Ingiriiska 26 Juun 1960 waxaana ka soo qayb galay munaasabadani mas'uuliyiin iyo marti sharaf aad u tiro badan iyadoona ugu horeynba madashani ay ka hadleen qaar kamid ah salaadiinta gobolka Togdheer iyo sidoo kale taliyayaasha qaybaha kala duwan ee laamaha ammaanka gobolka Togdheer xogayaha degmada Burco iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo awaanin iyo xubno mataliyay haweenka gobolka Togdheer waa maalin weyn waa maalintii aynu helnay ka goona Ingiriis waa maalin qaaliya waa maalin aad inoogu weyn Ilaahay baa mahad leh ruuxaan arrintan waa arrin qiiro leh waa arrin xasuus leh maanta waa 26 Juun ragii goobjooga ka ahaa muxuu ahaa aqal xirsi ayaa hadalku ruuxaan ku gabagabaysan yahay laakiin waxay ujeedada u leeyahay waxa weeye inaynu xusno 26 Juun oo ahaa sareeyo manusqaame aan sidoo yahay eegne ka nasiib ka nasaar runtii mujaahidiintii u soo halgantayna SNM in badan oo maanta gidaarada tuban oo iska dayacanna way jiraan in badan oo ku geeriyootayna way jiraan agoon badan baa jirta wax far badan baa jira Ilaahay baa idinka jisaysiin baan leeyahay waa maalin qaran Ilaahay mahadi baan joognaa runtii magaalada Burco ama gobolka Togdheer wax badan bay dheertay degmooyinka kale anigoon faaninaynin waxaan idin sheegayaa had iyo jeer qarannimada Somaliland iyo caadifada Somalilandnimada waxaan qabaa anigoon faaninayn gobolka Togdheer ama magaalada Burco inay number 1 ka tahay oo iyadu hogaaminayso marxuuminti kuugu dheelmatayna lagugu maamuusiyo الله قرنك Somaliland موج شرفتيس ربو قرنك Somaliland ومالنتي 26 Juun aynu maxkamada Ingiriiska ka qaadanay xornimada iyadoo aynu hadana markii dambana wala hulay xamar oo aynu ku darsanay hadana waxa weeyaan koodii may waynu la soo noqonay oo labada maalmoodna maalina Ingiriiskii waynu ka qaadanay maalina waxaynu ka qaadanay Soomaaliya xasan sheekh waxaan leeyahay xidigtii cadayd ee laga xiisa dhacay calankii la xooraad xirsi jows ka dhigato xabadkaaga wali suran haddaanan NFD hingala dhigin oo huurkiya laga qaadin heeriyada haddaanan Jabuuti way hakatee hilanka kuwa kale hayaan marin haddaanan shantu way isku hidde Israaciil sida hubka iswada annaga yahaayaan kuwa sida laha waxa jira soo noqnoqda niman cuqaala ama salaadin isku sheega ama ganacsata oo had iyo jeer waati sahri sheegaysa u heerima ama taga koonfur oo inta waxoogaga oo soo qaataan oo yiraahdaan Soomaaliland baanu matalaynaa oo odayaashii baanu nay haddana inagu soo noqda ballan waxaanu ku qaadaynaa nin dambo gobolkan ana madaxweyne ka nin dambo ka tagay inaan dib ugu soo noqonayn nin dambo oo ka taga gobolkan oo xamar taga oo ka soo qayb oo heerima inaanu dib ugu soo noqonayn halka si kastaba shacbi weynaha reer Somaliland ayaa sanad kastaba 26 Juun dabaaldegyo iyo dawladusyo dhinac kastaba leh sameeya iyagoona ku weyneynaya xuska munaasabadani qaran ee 26 Juun oo ku aastaysan maalintii Somaliland ka xorowday boqortooyada Ingiriiska Aadan Cabdikariin Maxamuud Aadan Garasho telefishinka caalamiga SBC magaalada Burco.